wadadani waa jidka laamiga ee isku xidha xaafadweynta Xaasleyda iyo magaalada inteeda kale waxaana jidkani laamiga ay dawladda hoose magaalada Boorama ay dhistay horaantii sanadii 2018 balse waxa muddooyinkii ugu dambeeyay meelo badan oo kamid ah jidkani soo gaadhay burbur xoogan oo gaadiidka isticmaala dariiqan xataa ay ku kaliftay in meelaha qaar ay ka leexdaan kadib markii dibadda uu soo ifbaxday meelo badan oo jidkani uu ka burbursan yahay waxa uu istaago siiskooda isku xilqaamay dhalinyaro dhowr oo degan xaafadweynta Xaasleyda waxaana dhalinyaradani dayactiraysa jidkani horkacayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal ahna gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka u baxa xaafadda Xaasleyda ahna gudoomiyaha guud ee xaafadweynta Xaasleyda mudane Maxamed Abiib Maxamed cadceedu aad u kullayay dhalinyaradana ka hawlayihiin dayactirka jidka dablashada dushi ayay ku diyaarinayaan foostooyin ay gaamur ay ku karkariyeen kadibna waxay dhalinyaradan iswaafajinayaan gaari gacan ay ku soo guraan jeeg iyo gaamurkii ay karkariyeen kadibna waxay ku daboolayaan meelaha uu dayac uu ka muuqda jidkani inkastoo ay dhib badan tahay haddana wahab laga fursan waayay si loo daboolo baahida dayaca ee soo wajahday jidkani muhiimka u ah isku socodka dadka ku nool xaafadda iyo magaalada inteeda kale dayactirkan aan saaka wadnay waa dayactirkan ugu dayactiraynay wadadan laamida xaafadda Xaasleyda kaasi oo dayactir badan dhaawacyo badan ka muuqdeen oo hawshii galnay ujeedada aan u dayactiraynay waxay ahayd markaan aragnay wadadii oo goodkii ugu sii badanayaan marka hadii la gaadho waa in way soo gaadhgaadhisay markaas daraadeed waan gaadhnay alxamdulillaah markaan waxyaabo badan baan noo qabsanay wadadii waan dhameeyay waan dayactirnay waana ugu guuleysanay inaan hawsha qaban idinka caawiyay ama halkeed ka keenteen in qalabkan aad saaka aad ku dayactirayseen haddii ay tahay gaamurka iyo sidoo kale jayga waxa naga caawiyay annagoo kaashana maamulka iskaashatada iyo maamulka degmada iskaashatada waxa naga caawisay in siiso jagaca iyo wixii kharash baxay kuuligi ama inamadii shaqeynay maarku degmada Sleeman Xasan Xadini wuxuu naga caawiyay gaamurkii aan ugu shaqeynay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal ahna gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka u baxa xaafadda Xaasleyda ahna gudoomiyaha guud ee xaafadweynta Xaasleyda mudane Maxamed Abiib Maxamed waxa uu sidoo kale ka xog waramayaa qorshayaal dhowr ay ku hawlayihiin in maalmaha soo socda ay ka hirgeliyaan xaafadda Xaasleyda intaas oo kaliya kuma koobna qorshayaasha la rabo in laga hirgeliyo xaafadweynta sidoo kale gudoomiye Maxamed Abiib Maxamed waxa uu hoosta ka xariiqay in xaafadda midowga iyo isku duubnida ee Xaasley United ay dhawaanta ay ka hirgelinayaan barnaamij cusub ay ugu magac dareen iftiimi xaafadda qorshayaal badan baan ku leeyahay laakiin marka hadda waxaan ugu soo foodlay inaan toddobaadkan aan furno xafladii weyneed ee ugu soo bandhignay gaadiidkii hore ee meesha ka saarnay iyo gaadiidka cusub ee ugu bedelnay iyadoo aan iminka keenay birihii ay dadku nagu sugayeen rakaabka waqtiga ay sugayeen noo birihii keenay iminka birihiina aanu dhamaynay maanta aan wadadii dhamaynay toddobaadkan dhexdiisa insha Allah waxaan sugaynaa inaan qabanno xafladii weyneed ee nagu soo bandhignay gaadiidkii aan bedelnay iyo gaadiidka aan ugu bedelnay waxa jirta iftiimi xaafadda barnaamijkan iyadana wadnaa imika waxaan xaafadda waxa ka shidnaa 4 laambadood 4 laambadood waxa iibsaday dhalinyarta xaafadda oo iyagu isku xilqaamay markii la arkay anagoo saa u shaqeynayna wuxuu maarka magaalada Sleeman Xasan Xadini noogu deeqay 10 laambadood oo toddobaadkan gudihiisa xafladda insha Allah soo raacin doono in 10 laambadood ugu xireyno wadada xaafadda oo dhan si bilic xaafadda aan kor ugu qaadno وعمران حسين آدان مقالة بورما.